jirka bini'aadanka waxaan dhihi karnaa waa mashiinka ugu adag uguna casrisan ee adduunka aynu ku noolnahay dushiisa laga helo. wax baan ku aragnaa, wax baan ku maqalnaa. wuxuu inoo oggolaadaa inaan neefsanno oo aan hawo macaan qaadanno. sidaasi oo kale wuxuu jirkeenna inoo saamaxaa inaan ku soconno kuna orodno. waxaa mashiinkaasi ku dareennaa raaxo. wuxuu ka samaysan yahay lafo, muruqyo, halbowlayaal iyo xidido. naqshadda gudaha ee jirkeenna uu alla weyne u farsameeyey oo waxaanan bini'aadanka marnaba uusan samayn karin. waana mashiinka keliya ee wax walba isugu dhan yihiin. markaan si qoto dheer leh u eegno nidaamkuu alla weyne jirka bini'aadamka u farsameeyey, waxaan arki karnaa xaqiiqooyin kuu muujinaya weynida alla weyne subxaanahu wa tacaala iyo mucjisooyin aad la yaabto. unugyada jirkeenna mid kastaa oo ka mid ah wax buu qaabilsan yahay uu farsameeyaa. unugyada qaar ee jirkeenna ku jira waxay qaabilsan yihiin inay farsamaystaan lafaha. kuwo kalena waxay qaabilsan yihiin inay farsamaystaan neerfayaalka. xubnaha gudaha ee jirka bini'aadamka sida sanbabaha, caloosha iyo kuwa la midka ah howl gaar ah ayay jirkeenna ka caawiyaan. mid kasta unugyadaasi ka mid ah wuxuu alla weyne u qaabeeyey inuu samaysto cabbir iyo hanaan si wanaagsan u buuxiya shuruudaha looga baahan yahay qayb walba oo jirkeenna ka mid ah. markaan si qoto dheer leh u eegno nidaamka jirkeenna uu alla weyne u farsameeyey, waxaa waajib ah inaan alla weyne u mahadcelinno. sababtoo ah hal unug oo jirkeenna ka mid ah ayaa waxaa laga yaabaa in uu farsameeyo qiyaastii intaas oo trilyan oo unugyo ah oo jirkaaga uu ka kooban yahay maanta. bal u fiirso, waxaad arkaysaa hal unug oo inta jirkaaga uu ka kooban yahay oo dhan uu alla weyne lafdhabar ugu dhigay abuurkeenna oo dhan. unugyada jirkeenna oo dhan waxay ka abuurmaan markay ay isku tagaan ugaxaanta ama ukunta hooyada iyo shahwada aabbaha. qur-aanka kariimka ah markaad aqrinayso waxaad ku arkaysaa aayado uu alla weyne ugu hadlayo abuurka dhululka iyo cirka. sidaasi oo kale waxaad qur-aanka ku arkaysaa aayado uu kaga hadlaya abuurka kale iyo jiritaankiisa alla weyne subxaanahu wa tacaala. haddana markaad si qoto dheer leh qur-aanka ugu dul fikirto, inta uu alla abuuro oo dhan waxaa ugu cajiibsan bini'aadamka. qur-aanka waxaa ku jira aayado badan oo cashar u ah bini'aadamka, wuxuuna alla weyne aadanaha kula talinayaa inay dib ugu laabtaan oo ay dib u eegaan waxa laga abuuray. wuxuuna alla weyne dadka u sharaxayaa heerarka ay dadka soo mareen ama habka ay bini'aadamka ku noqdeen. naxnu khalaqnaakum falawlaa tusaddiquun. annaga baan idin abuurnay idinka ee maxaydaanan u rumaynayn. afara'aytum maa tumnuun. bal ka warama biyaha shahwada ee aad tuurtaan. aantum takhluquunahu am naxnu alkhaaliquun. ma idinkaa ah kuwa abuura iyada, yacni ka yeela biyahaasi shahwada ee u beddela aadanaha qaab wanaagsan, mise annaga ayaa ah kuwa abuuraha ah? markaan u imaanno nuxurka hadalka, bini'aadamka isku celcelis ahaan miisaanka jirkiisa wuxuu noqdaa 60 ilaa 70 kiilo oo ka wada kooban hilib iyo lafa tiro badan oo markii hore ku dhex jiray dhibic dareere ah. haddaba soo wax lala yaabo soo ma ahan dareerahaasi ugu dambayntii inay noqdaan qof bini'aadam ah oo caqli leh oo wax maqli kara waxna arki kara, oo qaab dhismeedka abuurka uu alla weyne u doortay uu yahay midka ugu quruxda badan uunkiisa oo dhan. walaqad khalaqna al-insaana min sulaalatin min tiin. dhab ahaantii waxaan ka abuurnay dadka, yacni aadanaha, dhoobo sooc ah. thumma jacalnaahu nutfatan fii qaraarin makiin. dabadeed waxaan ka dhignay firkii aadan nutfa, yacni tifiqo isku dhafan oo ninka iyo naagta ay soo tuuraan markay isku tagaan, oo aan ku meelaynay meel sugan oo aamin ah. waa riximka ilmagaleenka haweenka. thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fakhalaqna al-'alaqata mudghatan fakhalaqna al-mudghata 'idhaman
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. dabadeed waxaan ka dhignay nudfadii ama tifiqdii xinjir goosan oo adag oo dhiig adkaaday ah. markaas waxaan ka yeelnay xinjirtii cad yar oo hilib ah. markaas waxaan u samaynay cadkii hilibka ahaa lafo. markaas dabadeed ayaan huwaynay lafihii hilib. dabadeed waxaan keennay isagoo abuur kale ah. ee ha kor ahaado alle kan u wanaagsan abuurayaasha. bal xilligii aan soo marnay aan dib u eegno haddii aynu nahay bini'aadam oo aan dib ugu laabanno tagtadii hore oo sidaasi oo kale aan dib ugu laabanno xaaladdii aan ku sugnayn haddii aynu nahay bini'aadamka maanta dunida afarta jiho kaga nool. hal unug oo ku dhex jiray hooyada caloosheeda oo ahaa mid caawimaad iyo ilaalo gaar u baahnaa oo weliba ka yar cad yar oo cusbo ama milix ah ayaa innaga iyo kuwii inaga horeeyey ee dhulkan mar joogay laga wada abuuray. intii aan unuggaas yarka ahayn wuxuu unuggii u qaybsamay 2 kadibna wuxuu unuggii u sii kala qaybsamay 4 kadibna 8 kadibna 16 kadibna wuxuu u sii kala qaybsamay qaybo badan. intaasi kadib wuxuu unuggii noqday cad yar oo hilib ah. kadibna hilibkii wuxuu yeeshay gacmo, lugo iyo indho. cadkii hilibka ahaa waa uu koray oo 100 bilyan oo mar ka weynaaday xajmigii hore ee unugga ahaa. wuxuuna noqday mid 6 bilyan oo mar ka culus xajmigii hore. intaasi kadib wuxuu alla weynay unuggii yaraa ka abuuray adigaan iyo aniga oo maanta muuqaalkan ka daawanaya YouTube-ka ama TV-ga, midkaasi oo mar isaga oo dhan ka yimid biyo aad u tabar daran. alla weyne wuxuu quraankiisa inoogu sheegay siduu aadanaha u abuuray iyo heerka uu soo maray iyo awoodda alla weyne ee ku aadan abuurista aadanaha. ma wuxuu aadanaha moodaa in looga tegi doono bilaash, yacni in la iska dayn doono isagoo aan loo ciqaabin ama aan laga abaalmarin xilkii uu ku waajib yeelay rabbigii oo ah allah korkii. alam yakun nutfatan min maniyin tumna, ma uusan ahayn nutfa, yacni tifiqo isku dhafmay oo biyaha shahwada ee ninka iyo naagta ay soo shubaan. thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa, dabadeed wax uu noqday calaqa xinjir. dabadeedna allah baa suureeyey oo qaab wanaagsan u yeelay. faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha, oo ka dhigay 2 nooc oo lab iyo dhidig ah. alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mawta, ma uusan isagu allah ahayn kan fala waxaasi, yacni awoodin inuu siiyo nolol kuwa dhintay ama muutada ah. haa hoo waa uu awoodiyaa allah inuu falo wax waliba. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم.